cabdi iimaan jaamac waa beeraley ku nool xarunta gobolka Awda Beligubadle gaar ahaan qabalayga xagga dhanka Itoobiya waxaanu tabac galiyay aad u badan beer uu ku leeyahay dhankaasi cabdi iimaan jaamac waxa uu noogu waramay marxaladii kala duwan ee la soo martay beertani waxa uu ka sheekay haatan inay marayso marxaladayadu iskafayso dhanka kale maraan wax ka weydiinay inuu cabdi iimaan jaamac uu helay wax kaaba oo dhaqaala waxa uu noo sheegay inaanu wax dhaqaala wali alaakaasi aanu helin kan cabdi iimaan oo ka waramay marxaladii kala duwan ee la soo martay beertani waxaan ku bilaabay markii hore waxaan ka qodi jiray arabkhi khal iyo garow aan ku beeri jiray ka bacdi waxaan u fikray inaan arabkhi garow aan wax maclaa sameeyay waxaan u fikray in dhirweynta ka beero waxaan imka beerneed beertan muddo 3 sano ah waxa ku yaala wada aragtaa waxa ku yaala barbaroonigii akhtarkii babaygii saytuunkii rumaankii xabxabkii samaandha xabuubtii tigirtii wax walba ku yaalaan imika waa la gurayaa oo waxa laga gurayaa akhtarkii waa la gurayaa barbaroonigii waa la gurayaa babayga saytuunkii inta waa bislaadeen wata la gurayo marka waxa leeyahay dadka wax beeranaya aan waxa ku dhiirigelinayaa in qaadka la iska daayo la beerto khudradda waayo khudraddu way kala cag macaantay qaadku waa labada xilli laakiin khudraddu mar walba waa la gurayaa marka waxa leeyahay dadku ha beertaan wax macabasashi baa ku socda waxa ku yaal baamiyi baa ku yaala dabacasi baa ku yaala ayuu noocan koo lima jirto beertayda waxaana had iyo jeer iga shaqeeya shaqaale waayahay cabdi iimaanow usbuucii markaad imaka dhaqaale ahaan dhaqaalihiid gelisay maahe dhaqaalaha imaka ka soo baxa usbuucii maxaad oran kartaa weeyaan kolley sanadkan kolley imaka labadii sanadii markii hore waa lagu tacay waa la gelinayay laakiin sanadii markan dambe way isbixinaysaa oo salaadan ku soo imika dee khudraddu waa qaali imika kiilooga akhtarka waxaan siiyaa 14 qarash ka barbarooniga 10 baan siiyaa babaygo kale 15 baan siiyaa amba 20 baan siiyaa xabada basasha sidaas leeg way qaalsan way imika way ka go'antayba xabuubtu waa la mid ya marka waxyaabo fara badan oo faa'iido ah oo aanay dad aan shaadku lahayn bay leedahay khudraddu waayahay markaad adeega biyood ka hadlayso maadaama gobolkeenu yahay iyo degmadeenu ay tahay biyo la'aan oo ay xariir bay ugu jiraan dadka biyaha cabbi lahaayeen maxaad adigu aad ku maaraysaa beertaada waxaan ku maaray marka way ka jabneed barkadu marka waxaan sameeyay ceeliyar markii hore imika barkadi baan sameeyay labadu way buuxaan waa kusii soonaa imika biyihii waan helay kolley mid labaadna waxaan rabaa inaan dhinaca kala uga qodo si ay labada ceel taakuleeyaan maadaama aan meesha biyo lahayn waxaan u baahantay marka dhirta la aqbaalayo la siirayo ayaan looga maarmayn laakiin geedka hadduu qabso u dhalo deer mar walba lama waraabiyo cabdiima dhirtani maka camba babayga dhex taagantay waa mise geed baad soo dhan ilaa 100 geed boqolka geed markii ay qabsanayeen meesha intee bay kugu qaadatay waxa ku waqti intee kulli marka hore waan store hamaan soo qaatay marka 6 bilood ka bacdi way بدله meesha adani ma aha bool ma aha waxa weeye dhul isku jira labada dawladood marka la eegana waa meel u dhaxaysa ma dhaxaysa Itoobiya Itoobiya beerta waxa ka tirsan degmada xarshin degmo waayahay degmada xarshin laftirkeed dhaqaale ahaan ma ka kabtay wax dhaqaale ah oo aad leedahay wasaaradda beeruhu way ka kabtay insha Allah ma dhowr goor report ka geynay waan ka sugnaa in wasaaradda beeruhu ay caawimo iyo maalgelin banas ninka geed beera Itoobiya waxa weeye nin laandheera oo waa wax soo saar buu sameeyo hamiduu sameeyo farxigin barboosarkaaga oo qortayo jawaab degdeg waan barboosarka waan gudbinay waan ka sugnaa warka waxaana kala ku tarin kale macaantan ayaa ku jirta waxa ku jirta muxuu ahaa amba lafka beeran oo ku tis doona oo imka qabsaday intaas oo imkaan beeray aan ku tis